bishii May sanadkii 1991 ayaa madaxweynihii hore ee Jabuuti Xasan Guuleed Abtidoon uu ku dhawaaqay inuu shir nabadeed u qabanayo jabhadaha riday xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre. shantii bishii Juun ee isla sanadkaasi waxa qabsoomay shirweynihii ugu horeeyay ee nabadeed ee kooxaha Soomaaliyeed ay yeeshaan. shirkaasi waxa ka soo baxay qodobo ay ka mid ahaayeen xabad joojin, in Maxamed Siyaad Barre uu wadanka ka baxo iyo in la iskugu yimaado shir kale oo dib u heshiisiina isla Jabuuti bil kadib. shirkaasi waxaa qaadacay ururkii SNM iyo Generaal Maxamed Faarax Caydiid. hogaamiyaasha ururka USC waxay isku dayeen in ka hor shirweynaha dib u heshiisiinta ee ka dhacaya Jabuuti ay mideeyaan hogaanka iyo mowqifka ururka. bishii Juun 1991 ayaa ergooyinka ururka USC kalfadhi uga furmay hoteelka Guuleed ee waqooyiga Muqdisho. waxaa shirkaasi lagu doortay Generaal Maxamed Faarax Caydiid inuu yahay gudoomiyaha kaliya ee ururka USC. Cali Mahdi Maxamed ayaa iga warramay shirkaasi ay USC-du ku wada hadashay. markii la iskugu yimid xamar oo kulli la iskugu yimid oo la wada hadlay waxaa la gartay in hadda Muqdisho lagu doorto gudoomiye cusub iyo golaheedii dhexe in Muqdisho lagu doorto waxaana loo doortay gudoomiye Generaal Caydiid inuu noqdo gudoomiyaha ururka USC. dadka goobjooga ka ahaa wadaxaajoodyada iyo isu tanaasulka ka dhacay hotel Guuleed waxay ku doodayaan in doorashada Generaal Caydiid ay barbar socotay heshiis aan rasmi ahayn oo ay hogaamiyaasha USC dhexdooda ka gaadheen oo dhigayay in Cali Mahdi uu noqdo musharaxa jagada madaxweynenimo ee ururkaasi marka la iskugu yimaado shirweynaha labaad ee jabhadaha Soomaalida ugu qorshaysnaa inay ku yeeshaan Jabuuti. Cali Mahdi Maxamed waxa uu ku adkaystay in isafgarad noocaasi ah oo aan qoraal ahayn uu jiray. sidaas ayaa la isku afgarashadu sidaas ay ahayd. laakiin wax qoraal miyaad kala saxateen? wallahi hadee waa ogtahay waxa dadka muxuu ahaay hogaaminaya waxay dadka waa qabiila ururku inta badan qabiil oo ku aftirsanay inkastoo qabaa'il fara badan oo Soomaali ay ku jireen wuxuu ahaa gentleman agreement ayuu ahaa ee hadda qoraal oo la kala saxeexay oo la kala saxeexday laakiin sida guud la isku raacsanay sidaas ay ahayd. Cismaan Xasan Cali Caato laftiisu ma beenin in heshiis noocaasi uu jiray. waan maqlay waa in heshiisyo jiraan laakiin waxaan sugi karo maahan. waan maqlay wariska sidaas. wakiilada 6 jabhadood ayaa isugu tagay ka qaybgalka shirkii labaad ee kooxaha Soomaalida ay ku yeesheen dalka Jabuuti oo furmay 15 bishii Juulaay 91. ku dhawaad 7 kadib jabhaduhu waxay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin in la qaato dastuurkii 1960 in la dhiso golo baarlamaan iyo in muddo 2 sano ah uu madaxweyne ku meel gaar ah sii ahaado musharaxii ururka USC Cali Mahdi Maxamed. soo magacaabistiisa kadib Cali Mahdi Maxamed waxa uu bilaabay dhismaha dawladdiisa. hase yeeshee heshiiskii Jabuuti waxba kuma soo kordhin xaaladii Muqdisho iyo khilaafkii USC sababtoo ah madaxweynenimada Cali Mahdi waxaa gaashaanka ku dhuftay Generaal Maxamed Faarax Caydiid. wallahi waa bidan yani taas hadda qof hadda ka qarsoon tahay male Caydiid inuu diiday yani doorashadii la soo doortay oo 2 sano ahayd inuu diiday waa wax la wada ogyahay. waana waxaan dhihi karaa wax shakhsiya waa isaga aragtidiisa gaarka ayaan u abtiri karaa anigoo hadda qof kale kuma saarayo inuu asigu sidaa go'aansaday ayaan aaminsanahay. dadaalo badan oo la sameeyey waxay dhammaantood isugu soo biyashubteen hal bacaad lagu lisay kadib markii lagu guuldarraystay in la heshiisiiyo Cali Mahdi Maxamed iyo Generaal Maxamed Faarax Caydiid. Cusmaan Caato ayaa sheegay in labada nin ay dhaga aday ka muujiyeen sidii xiisadii u dhaxaysay loo qaboojin lahaa. anigu shir baan joogay odayaal labada dhanba matalaya ay Madiina ku galeen waxaana go-aanku ahaa in labada qolo waliba ay ka raadido Generaal Caydiid iyo Cali Mahdi in awood qaybsi yimaado. anigu waxaana aqoon loo diray jamanka raggii kale odayaasha ahaana waxa ay aadeen Cali Mahdi markii
labadoodu qolana sheegatay inay madaxdii tahay oo dawlad dhisayo cali mahdi ay diidan qabay war hadeed qoladayadii soo dagaalantay talada waxba nalagama siin annagu waxaanu aadnay caydiid waxaanan ku niri cali ha loo daayo labadaas sano cali mahdina waxaa la yidhi dawlad hadhisin inta heshiiskaas labadiinu aa wada qaadanaysaan ma suurtoobin waxaana dhacay dagaalkii xamar saansaan colaadeed oo xoog leh ayaa ka abuurantay magaalada muqdisho waxaana bilaabantay in labada dhinac ay ciidamadoodu kala degaan dhinacyada waqooyiga iyo koonfurta magaalada muqdisho cismaan caato waxaa markaasi ay saxaafadda caalamku u taqaanay inuu ahaa maalgeliyaha jenaraal maxamed faarax caydiid taladiisa iyo talada jabhadda anugu waa raacsanaa beesha caalamka iyo jaraa'idku iyo hadda waxay doonaan bay ishaari karaan laakiin anigu tala ahaan talada caydiid waan raacsanaa waxaan kaloo raacsanaa inaan qolada kale waxba yeelayna in dagaalka la joojiyo iyadana waa raacsanaa. dad badan baa kuu aaneeya oo yidhaahda cismaan la-aantiis ma galeen caydiid dagaalkaas uu cali mahdi la galay maxaad dhihi lahayd? midaasi waa iska dee sheekadii soomaalida iyo ishaaradii wax lagu qaldahayey anigu talada caydiid waan raacsanaa laakiin ma raacsanayn mid dadku isku baaboo iyo xaajada meel aan laga soo celin karin la geeyo. shantii sebtembar rasaas xoog leh ayaa goor galaba bartamaha magaalada agagaarka hotel Shabeelle ku dhex martay labada dhinac. labada nin ayaa midbaka kale ku eedeeyay inuu colaada cusub horiyey. jenaraal caydiid waxa uu sheegtay in isku dhaca looga dan lahaa in isaga lagu dilo halka uu cali mahdina isna uu dhinaciisa ka sheegtay inay ahayd tallaabo lagu afgambiyey dawladdiisa. ugu dambayna 17 Noofambar sanadkii 1991 dawladda cali mahdi uu madaxda ka ahaa waxay isku diyaarisay in la soo dhaweeyo oo ay qaabisho wafdi ajaaniba kii ugu heerka sarreeyay ee dalka soo booqda tan iyo intii la riday dawladdii hore 10 bilood ka hor. waxaa la filayay inuu muqdisho yimaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. dhinaca kalena jenaraal maxamed faarax caydiid ayaa soo saaray digniin ah in ururkiisu aysan damaanad qaadayn ammaanka wafdiga haddii ay muqdisho yimaadaan waxaana uu maleeshiyadiisa u kala diray inay fadhiistaan goobo istiraatiiji ahayd oo ay ka mid yihiin safaaraddii Maraykanka kilomitir 4 oo uu maro jidka garoonka diyaaradaha ka yimaada iyo duleedka gegida diyaaradaha laftigeeda. intaasi waxa uu raaciyey eedayn uu dowladda Talyaaniga ku eedeeyey inay soo faragelinayso arrimaha Soomaaliya isagoo ku hanjabay in ciidankiisu ay diyaaradda toogan doonaan haddii digniinta la iska dhaga tiro. arrintaasina waxay aad uga caraysiisay dowladda Cali Mahdi Maxamed iyo taageerayaashii dowladdaasi waxaana dowladdii Cali Mahdi Maxamed ay tallaabada uu jenaraal caydiid qaaday kaga jawaabtay inay ciidan kor dhigto goobihii fariisimada u ahaa jenaraal caydiid waxaana halkaasi ka qarxay dagaalka la magac baxay dagaalkii 4 bilood. dagaalkaasina waxa uu noqday dagaal aafo ballaaran u keenay dalka una horseeday colaad hor leh macluul iyo weliba xasilooni darro baahsan. dhinacyada islaynayena waxay isku adeegsanayeen hub wixii ay heli kareen ee lagala haray dowladdii hore ee Maxamed Siyaad Barre hubkaasi oo isugu jiro hubka fudud boobayaal culus hoobiyayaal jiib iyo madaafiicda baabuurtu jiido iyo weliba kuwa ka dhaca taangiyada. waxaa ka maqnaa oo keliya diyaarado iyo hubka nuclearka ah oo haddii ay isku heli kari lahaayeen aysan isaga tudheen. jenaraal maxamed faarax caydiid waxaa lagu dilay mid ka mida dagaaladii ka dhashay dagaalkii 4 bilood balse cali mahdi oo hadda nool waxa uu VOA-da u sheegay inuu aad uga tiiraanyoodo dagaalkaasi. waxaan dhihi karaa waxa waaye nasiib darrada waxay ka bilaabataba markii caydiid uu diiday in labadaas sano aan anigu dalka madax ka noqdo ee uu go'aansaday inuu colaad ku qaado dawladdii markaa la dhisay. horta nasiib darradu halkaas ayay ka bilaabatay wixii ka dambeeyeyna hoosay usii degaysay. dagaalkii 4 bilood waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah waa dagaal
aada looga xumaada oo laga tiraanyooda ah. waa dagaal wixii ka yimid ama dhaxashii ka timid ay maanta soomaaliya meesha ay joogto ay joojiyey. waana nasiib daro, waana ka xumahay, aadaana uga xumahay in muxuu ahay soomaaliya ay eersato dagaalkii 4 bilood ee ka dhacay muqdisho. in soomaaliya maanta meesha ay joogto inay joojisana aadaan uga xumahay. marka aadaan uga tacsiyayaa ummadda soomaaliyeed dhibka gaaray, haba shalay ha gaare haba maanta ha gaare, aadaan uga tacsiyayaa. waxaana ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay noo dambi dhaaf. maxaa jira dunuub fara badan oon galnay waayo waxa maanta aan miraheeda guranayn. waxaase uu Cali Mahdi qabaa in xaaladda Soomaaliya xalkeedu uu dhowaa markii khilaafku u dhaxeeyay kuna ekaa isaga iyo Generaal Caydiid. Soomaaliya horta arrinteedu waxay daawo lahayd markii Cali Caydiid ay ahayd. daawadeedu maalintaasi aad u fududeed. haddii la heli lahaay rag waxgarada ee wax kala yiraa Cali Caydiid, waxaan qabaa wixii maanta dhacay ma dhici lahayn, wixii shalay dhacay ma dhici lahayn, maanta waxa dhacayna maba imaan lahayn. Cismaan Caato oo qayb ka qaatay dagaaladaasi marka ay noqoto taageerada dhinaca saadka militariga iyo dhaqaalaha ee la sheegay inuu u fidinayo Generaal Caydiid, waxa uu sheegay isna inaanu wanaag badan xasuusan marka uu dib u jaleeco xaaladii ay Muqdisho soo martay xilligaasi. wax khayr badan iyo ijaabo badan siyaad bare iyo dagaaladii la soo galay inaysan wax khayraad badan ahayn waa igu soo dhacday, waana aan qabaa. dee cawadaro iyo nasiib darana si halkaas inooga dhacday, waxaana weeye wax laga naxo. guud ahaan Soomaaliyana waxaa dagaalkii sokeeye ee Muqdisho ku dhex maray dhinacyadii USC uu u horseeday khasaare iyo in colaadii si weyn isugu bedesho qabyaalad siina fool xumaatay. waxaa sii kala burburay qabaa'iladii, waxaa sii kordhay jabhadihii mucaaradka oo u kala qaybsamay kooxo iyo firqooyin tiro badan, taasoo sii durkisay xalkii Soomaaliya. Daahir Mire Jibriil waxa uu ka mid ahaa xubnihii ururka SSDF ee ka soo baxay xabsiga dalka Itoobiya kadib dhicitaankii Mengistu Haile-Mariam. annaga qarsoodi ma ahan, meelo badanna waa kaga hadlay. yacni guddoomiyihii SSDF markii dambana madaxweynaha Puntland madaxweynaha Soomaaliya noqday. arrintu inay sidaa noqonayso haddaan ay noo muuqato ama aanu u malaynayno inay sidaas noqonayso, jabhaddii hubaysnayd ma aanaa samayneen. soo qofna ma inkiri karaan qabaa jabhadihii dagaalamay oo la dagaalamay siyaad bare oo xukunkiisii la dagaalamay inaanay u muuqan sidaa in wax u burburahayaan oo dalka Soomaaliya sidaa u kala tegayo oo maanta arrintii meel laga soo qabto ayan lahayn. ma aanaa samayneen sidaas, kumana aanaa dhaqaaqneen ee xalka si kalaan u raadin lahayd. mana u cududaaraya anigu yacni xukunkii siyaad bare sida uu ugu tuntay xuquuqdii iyo dadkii iyo xorriyaddii dadka iyo siduu ugu tuntay ama u laayay dad badan u laayay u cududaari maayo. laakiin in qarannimadiiba la waayo, inay qayb ka qaateen jabhadaha oo yacni isu imaan waayey oo wax dhisi waayey oo wax maamuli waayey. waxaa haddaba la isku wada raacsan yahay in xilligaasi jabhadaha mucaaradka ah aysan wadanin ajandayaal qaran oo ay ku maamulaan waddanka kadib xukuumadda Maxamed Siyaad Barre, waxayna taasi fududaysay in qabyaaladu ay afduubto ujeeddooyinkii ay jabhaduhu sheeganayeen in marka horeba loo aasaasay. Jaamac Maxamed Qaalib ayaa ka warramaya sida ay taasi ku timid. mushkiladda dhacday waxay ahayd markii Maxamed Siyaad Barre dadkii weliba meel walba laga keenay oo meel walba laga keenay qorshe ma jirin. marka boob bilaabeen meel walba sidoo dhacday بالمثل كونفورتا مقدشة يا وحي كميدا بلدي كسيحيجا كونفور كسيحيجا وهكذا شيء مريان الله يقارنه ليه بلد وين قوي كسو حيجنا وهكذا شيء وحلا يراد تشفي مركز الصوت جارو laga soo baxo garowe ilaa Allah taxaanoodii oo intii ka dalbeeda la soo gaarana baydeeda la oran jiray wuxuu isku wada mid bay ahaayeen waxa saada shay marka waxa saasa xukun soo geli kari waay marka fawdada iyo dagaalada ku baahay dalka waxa lagu sifeeyay inay qayb weyn ku lahayd
hoggaan xumo wehel u noqotay madaxda jabhadaha iyo wadaninimada oo ku yarayd. daahir miro jibriil ayaa madaxda jabhadaha Soomaaliya barbar dhigay kuwii dalka Itoobiya ee sanadkaasi 1991 iyagu xukunka ka tuuray Mengistu Haile Mariam. tusaalaan ku siinayaa anigu markaan ka soo baxay xabsiga Alambaqa bishii May 27keedii waxaa qabsaday 28kii waxaa qabsaday ururka mucaaradka haba meesha qabsaday EPRDF baa qabsaday. bisha 30keedii idaacaday ka hadleen waxay siiyeen amar ah wasiir ku-xigeenadii baa wadahaya wasaaradaha ha ku noqdeen xafiisyadoodii qof kasta oo civil servant ahna shaqadiisii waa inuu tagaa maanta bay yiraahdeen. yacni si aan xafiisyadii loo bilaqaysan si shaqaalihii meesha ugu noqdaan si dadkii maxaan ku yidhaha control iyo kala dambayn u jirto wasiir ku-xigeenadii bay yidhaha ha tageen meesha. bangiyadii far lama saarin. waxaan xusuusnahay nin bangi madax ka ahaa magaalada Dirdhabe oo ka baqay lacagtii in la dhaco oo lacagtii inta jawaana ka buuxiyey tareenka la raacay oo Djibouti la tegay oo Djibouti markuu la tegay yiri lacagtan qaranka Ethiopia iskale ha loo celiyo waa kara anigu laakiin ku noqon maayo meeshii waana dhab way sheekaruna weeye. dadka Soomaaliya wadaniyadooda xun waxa xun garashadooda yacni dhibaatada say u imaan kartaa xun waxa xun yacni xukun doonistooda ay xukunka rabaan si kasta inay ku helaan baa xun. markii Siyaad Barre uu ka cararay magaalada Xamar establishmentigii jiray iyo dawladii jirtay iyo ciidamadii iyo booliiskii iyo wardoonkii iyo sirtii kulligood waxaa la yidhi hala laayo halaga qabto yaa meeshii la wareegay. waxaa la wareegay dhalinyaro yar oo baadiyaha ka oo xafiiskii alaabta taalla iyo waxa lagu qabto iyo shaqadii ka socotay aan dan ka lahayn alaabtaas inta rarta gurigoodii geysanaya ama dilaya qofkii ka yimaada. anigu marka waxaan qabaa nimankii Xamar joogay ayaa gabay wadannimadi sidii EPRDF haday oran lahaayeen qof walba shaqadaadii ku laabo immediately ku laabo. wax kale aan ku sheegayaa Cumar Carte Qaalib oo loo doortay markii Siyaad Barre meesha ka cararay inuu yahay prime minister lagu dhawaaqay inuu yahay idaacada wuxuu ku yiri haddana waa duuban tahay ciidamada Soomaaliya waa inay u dhiibaan hubkooda iyo qalabka ay haystaan meesha ay joogaan saddex jabhadood jabhadii SNM jabhadii USC iyo jabhadii SPM iyo how dhiibeen. taas waxay meesha ka saartay in wadannimadi jabhadihii oo aan diyaarsanayn oo aan cidna u diyaar ahayn oo xukunkiina la wareegaan oo iyaga dhexdoodii midnimo ka dhaxaynin in markaas vacuum uu bilowdo meeshina lagu kala tago ciidankiina qof kasta uu la cararo hubkiisii xeryihii ciidamadana inta la galo hubkii la boobo hubkaa la boobayna waa midka ilaa 20 sano hadda dadkii lagu gumaadayo. dhinaca hoggaankana jabhaduhu kama ay wada sinayn waayo aragnimada ay u lahaayeen gacan ku qabashada maamulka iyo hoggaaminta isbeddelka yimid. halka ay nidaam darro iyo fawdo ay asqaysay jabhadihii koonfurta ururka SNM waxay ku guulaysteen inay Somaliland ku soo dabaalaan amarka iyo kala dambeynta. Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramaya waxa ururka SNM u suurtageliyey xasilinta deegaanadeeda ayna kaga duwanaayeen jabhadihii koonfurta. SNM iyadoo oo 10 sano soo ahayd jabhad oo iyadoo halkan ku jirta mar walba doorasho iyo muran iyo bedelaad madaxeed galisay oo ku soo kobocday arrintaasi ugu bislaatay maaragtay waxa ay isku qaadashada iyo wada jirka idinku firkiinu kala duwan yahay ay waayarnimaas horta SNM lahayd. afar madaxweyne ama chairman bi soo bedeshay SNM midna laguma kala dudin midba loo iyo campaign baa la soo galay qorina waa la filayo dadna waa dhimanayo dagaal waa ku jira waayarnimadaas horta SNM la tirada dalka dabeetana wax kasta oo isbedelaya marka la isqabto waxay lahayd mechanism ama hab ay ku xaliso khilaafaadka. marka hore waxay samaystay waxa la yiraahdaa dad dhexdhexaadiye iyaga hadday isqabtaan qoladan golaha ku jirtaa oo mar walba ama guurta la yiraahdo ama guddi loo saaro oo la yiraahdo dhexanta khilaafka xalis marka shir galayno waxa la sii diyaarsan jiray wax dabka damiya hadda wax dhacaan dad badan waxa nagu caawinaya waxa jabhada qolada dhul qabsaday ee laga qabsaday anna waxaan ku faanaa jabhada qolada Afrikaan ahaayee inta dal qabsaday dadkoodii u dhigtay ee hay waajibka dalka war walaayna cadu min ku xireen waa waayarnimo aanay gaari kuwa kale. xaaladda Soomaaliya ayaa haatan sii cakirantay sidaasoo ay tahayna Muuse Biixi Cabdi waxa uu aaminsan yahay in xal loo heli karo mushkiladda haddii xalka la doonayo. koonfurta dee 9 gooray baqay rogatay ma koonfurta deetana waxa soo baxay waxyaalo aan laba akhri karin Soomaalidu waxay u jirtay
warqayla dhacday balaa xabad baa qayla yeerayso oo waxba dhacay masaajidka geliya masaajidka meesha lagu baxsaaday koonfur waxa dhacay masaajidka lagu dhex tiraya waa halkii lagu cararayay waa halkii nabad ugu dambeysay la galo marka dadku jira waxa sheekhu inuu wacdo sheekh dhageysta teetanayo inta soo meeyay talaaba sheekh waxa yiraahdaa waa lagu kala qaqaa markuu ka wacdi waa la qaban sheekhdii baa birta iska aslaya marka horta warintu waa arrin adag oo waxay gashay meel aynaan dee hore u arag oo waxa ugu laga subxaanallah taymka xabar ka socota iyo dee adduunka badantiisa laakiin xalku wuxuu ku jiraa anaga eelati dadka koonfurtooda gar ama sheekha sheegto ama wax kala ha sheegto maanta dadka xamar jooga xamar looga wadaya ay isku haday waa in ilaahay meesha wada dhigo isku isuran aniga waxay la tahay shaarkan sheekh iyo siyaasiga inta la iska bixiyo la isu gashanayo waar nolol baynu u baahanahay qoriga naga dhigo maxaynu yaalaba ku jirta xalku teetana iyagoo qura keeni kara dushka kama geyn karo waxaynu ku waanaynaa inta hubka dhigo miyir la keeno tan war maxaynu isku haynaa ma heshiina ilaa nin dhamayn maayo oo dhamaan nin ka takhallus kari waayo oo isma dhamayn karaan dadkina baaba intayni kale ee ag joogtayna xanuun naguma yaradee maalin kasta marka xamar laga warramo intaasoo iyo intaasoo dumar iyo intaasoo carruur dhintay dee adeer nin walba caloosha xanuunsan meel kasta joogo ninkii af Soomaali ku hadlaayaba waa xanuun ku yaalo nin Soomaali arrinta markuu maqla aan xanuunsanayn oo aan dhiig ku kacayna ma jiro marka hadii anigu waxaan leeyahay go'aanku iyagu ka imanaya dagaalkana waxa joojiya dadka dagaalamaya oo dagaalka joojiya dibadda kama jooji karo marka walaalada waxaan ugu baaqaynaa inta hubka seeta ee maanta culimada u badan in ay ilaahay ka yaabaan horta oo kaarigaan waxay ku loolamayaan waa dawladda ay yaan seen uga heshiina dadkana ay ka daayaan dadkan dhimanaya maatada wixii Soomaali ku hadaan naxdin iyo caafimaad shayna ay ka yareeyaan labaatan sano kadib ridistii xukuumaddii maxamed siyaad barre kadib qabashadii 15 shirar dib u heshiisiineed waxay u muuqataa inaan weli fari ka qodnayn khilaafyada siyaasadeed iyo dagaalada kooxaha iyo weliba loolanka qabaa'ilada waxaa intaasi dheer soo bixitaanka kooxo diimeed oo hubaysan oo iyaguna u baahan wakhtigooda iyo xalka oo wakhtigiisa yimaada isweydiintuse waxay tahay maxay Soomaalidu uga faa'iidaysan weyday taariikhda la soo maray si ay dawladnimadeeda iyo qarannimadeeda dib ugu hanato